waxaan halkan ka salaamayaa dadka maantoo dhan bacadkan ii taagnaa oo sida sharafta iyo maamuus kale ii soo dhaweeyay cuqaasha iyo saraakiisha SCC iyo dhammaan bulshada reer SCC aad iyo aad baan u salaamayaa. waxaa la yiri caano qubtay dabadood la qabay waxaan ka raali gelinayaa bulshada daarood ama harti ama dhulbahante delqaaf fara badan dadkayga ku ah aan geystay waxaan ka raali gelinayaa hor ilaahay inay cafiyaan. inta marka aan ka gudbo halkan waxaa ka talin jiray Faysal Cabdi Bootaan oo ku khudbay jiray bardayaashan Tukraq Taliskan maanta anigoo maayirka xuleenka xuduna ku baa ka khudbadeynaya oo dadkayga iyo dalkayga la dhiiga maanta wuxuu ilaahay igu ogyahay oo dadkayga igu ogyahay oo daarood igu ogyahay harti igu ogyahay dhulbahanta igu ogyahay inaan u dhimanayo dalkayga iyo diintayda iyo dadkaygaba. waxaan caalamka u sheegayaa inta aan nool nahay ama daarood ama harti ama dhulbahanta aan nahay in aan dalkayga iyaga iyo ciidayada aan ku dhimanayno. inta marka aan ka gudbo waxaan adduunka iyo caalamka aan u sheegayaa maadaama raali gelin aan bixiyay hadalladii si kastaba ha iga yimaadeen iga soo wareegay inaan ciidayada iyo dalkayaga isku mid aanu ka nahay. waxaan ogahay dad aniga iga dambeeya oo Hargeysa ku sugan ama Somaliland ku sugan oo dhulbahanta sheeganayo maxaabiista meel ay ka soo baxaan la waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan inay dalkooda iyo dadkooda u yimaadaan sida la qiimeeyay oo la igu soo dhaweeyay maadaama fakra khaldan meel kasta iga soo wareegay iyagana inaa sidaas oo kale loo maamuusiyo dhulbahanta u soo dhaweynayo hartina u soo dhaweynayo daaroodna u soo dhaweynayo wixii aniga wax iga tirsanayay ama igu cilqabay hadallada ama shaqooyinka aan raali laga ahayn oo dalka iyo dalka bedel ku ahaa oo anigu aan gacanta ku hayay xaal iyo booljiis baan ka bixinaya waxaan ka codsanayaa hor ilaahay iyo tuliimo inay cafiyaan. waxaan maanta anigu aan halkan ku wadaa 3 gaari 2 gaadiidka dagaalka iyo gaari barabogosa waxaan ugu soo heliyay dadkayga iyo dalka